Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaynaa daawooyinka xasaasiyadda ee loo isticmaalo anti-allergic drug. Lambar 1 waxaa ka mid ah dexamethasone, waa daawooyinka badiyo xasaasiyadda ama daawooyinka loo isticmaalo xasaasiyadaha yareeyo. Benthol ayadana waa qayb ka mid ah daawooyinka allergigada loo isticmaalo. Hydrocortisone waa daawo ka mid ah ayadana loo isticmaalo xasaasiyadda. Bromacin ayadana waa daawo kaleeto loo isticmaalo xasaasiyadda allergigada. Chlorpheniramine waa daawo ka mid ah qayb ku jirto xasaasiyadda anti-allergic drug. Cetirizine waa daawo ka mid ah ayadana waa daawo loo isticmaalo xasaasiyadda allergigada. Prednisolone waa daawada aadka muhiimka u ah inta badan Soomaalida isticmaasho, waana daawo aad u fiican inta badan ee loo isticmaalo xasaasiyadda. Avil oo ayadana ku heeb tahay chlorpheniramine waa daawo ka mid ah ayadana loo isticmaalo allergigada xasaasiyadda. Iyo Incidal oo daawo ka mid ah ayadana daawooyinka loo isticmaalo xasaasiyadda ee allergigada ah. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.